waxaan aad ugu faraxsanahay mudane madaxweyne inaan ka soo qayb galno saxiixan aad maanta saxiixayso documentkan aadka muhiimka u ah runtii mushaaqaduna way ka hadashay dhaqaalayahanaduna way ka hadleen dad fara badan baa ka hadlay anigu wuxuuna odhanayaa waxa weeye intii aad madaxweynaha ahayd runtii tallaabooyin badan ayaa la qaaday dadka Soomaaliyeedna qirayaan waxaad amar nagu siisay in la inagu kalsoonaado dadka Soomaaliyeed inagu kalsoonaadaan adduunyaduna inagu kalsoonaato taa macnaheedu wuxuu yahay waxa weeye in aan waxa khayraadka aan soo ururino ee budgetka soo gala si laysla wada og yahay loo isticmaalo waxaan nidhi saxiixnay inuu xaqaho runa oo la dabageli kara noqdo xaqiiqadu waxay tahay maanta waxa weeye mudane madaxweyne inaan qofna wax aanu lahayn qaadan karin baa xaqiiqa qof shaqeeyay xaqiisana cid kala qaadan karin baa xaqiiqa wixii miisaaniyada la isku keenay habka u baxday in la isla wada ogyahay ayaa xaqiiqa madaxweyne waxaan ka soo noqonnay shirkii weynaaye IMF-ta shalay mahaduraad waxay qirayaan IMF-tu iyo hay-adaha kale inay Soomaaliya intaad joogtay madaxweyne tallaabooyin waaweyn la qaaday xagga musuqmaasuqa iyo daahfurnaan la'aanta oo wax daahfuran lagu shaqeynayo sharcigana wuxuu noqonayaa kii taas sibirka ku sii dejin lahaa ayuu isaguna noqonayaa waxaan ku hanweynahay waxa weeye oonu diyaar u nahay in sharcigaas hirgeli doono annagu haddaanu nahay muxuu ahaa inaan dadka ka shaqeeya waxa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee arrintaa ka shaqeeya diyaar waxaanu nahay kaana ballan qaadaynaa dadka Soomaaliyeed hortiisana ku ballan qaadaynaa sharcigaasi in la hirgeli doono inuu fuli doono inuu dalkan u horseedi doono meel sare oo aan ku dhuumano sida ciise meel aan ku dhuumano xagga ka sarreysa inaan tagno. Salaamu calaykum madaxweyne wa rahmatullaahi wa barakaatuh.